السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halkani waa tv-ga guule tv oo daalaaba ka daawataan dacalada adduunka meel kastoo aad joogtaan youtube-ka facebookga meel kastoo adduunka dacaladiisa waa anigoo mukhtaar baashe maxamuuda maanta waxaan la kulmay aan wareysanayaa ku-xigeenka xisbiga kulmiye ee magaalada manchester iyo bolton cabdisamed xasan saalax gure gudoomiye cabdisamed kusoo dhawo guule tv aad iyo aad baan ku salaamaya mukhtaar baashe adiga iyo dhalinyarada daadahaysa tv guuleed waxaan idinku hambalyeelayaa hawshan aad qabateen inaad dadka ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda reer Somaliland baad u qabataan bulshada community-ga Manchester degan marka aad baan idin soo dhaweeyay aad nabad salaamantii aad iyo aad baad u salaamantahay gudoomiye su'aasha koowaad ku weydiinaya waxay tahay maadaama adigu aad magaalada Manchester gudoomiye ku-xigeen ka tahay waxaad nooga warantay xafladii kulmiye ka dhacday Sabtidii magaalada Manchester waxay ku saabsanayd iyo waxay ahayd bal nooga waran su-aasha mid baan kaga horumaraya waxaan ilaahay ka baryayaa shacabka reer Somaliland iyo shacabka kale ummadda kale af Soomaaliya ku hadashay in ilaahay abaarta ka soo saaro dalkii afadig baa ka jirta maan jeclayn inaan ka hadlo maanta siyaasad waayo dalku wuxuu ku jiraa xaalad emergency waxaan kalena aad ugu hambalyeeyaa madaxweynaha Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo gobolada bariga oo dhan maray aan ugu hambalyeeyaa geesinimada uu ku maray iyadoo dadku abaari hayso uu la qaybsaday dhibaatada iyo jawiga adeeg lagu jiro waxaan kalena halkan ka salaamayaa shacabka reer Somaliland oo dhan gudoomiyaha Muuse Biixi Cabdi oo laga yaabo inuu doorashada ku guuleysto sida la rajaynayo dadku ay u badinayaan marka su'aasha haddaan kaaga jawaabo Manchester xafladu ka dhacday ma jirto xusbiga Manchester waxa laan baa ka jirta laantana gudoomiye ku-xigeenka ah marka gruubo kale iska jiraan kuwa lagu magacaabo xiniya xaasido ka jira oo sheegtay inay ka mid yihiin kulmiye marka iyagana waxaan u leenahay waxa fiican xusbiga inaad la jaan qaadaan oo aad ku soo dhawaataan sharcigana aad raacdaan marka ma qabo anigu inay xaflad ka dhacday Manchester mana ogi mana aynan jirin laakiin way iska jiraan kooxo meelaha ka dhumaalaysanaayo marba sheegay inay meel xaflad ku qabtaan oo aan ahayn lamana kala hufin xilli kamid ah waxa kulmiye wuxuu ahaa baati adag buu soo maray doorashadii uu ku guuleystay marka wali qurbaha waxa ka jira qoliye iska sheeganaya laakiin aan xusbiga u danayno meelaha marba waxa xusbiga liddu ka sameeyay xafladda waxa la sheegay in ay dhibaato ka dhici gaadhay maxaad u malaynaysaa dhibaatada dhici gaadhay kulliba way jirtaa de qof aan sharci ku soconayn dhibaato waa la kulmayaa marka horta xafladdaasi xaflad jirta ma xaflad lagu kulmiye lagu sheegi karana ma shacabka reer kulmiye Manchester waa ku badan yahay guddigu leeyahay mustambeed buu leeyahay marka xaflad halka ka dhacday may jirin waxaanuna aanu ka tacsiyeeyna kulmiye haday sheegtaan kooxo aan u danaynayn arinta waa ka tacsiyeeyna marka ma jirto xaflad ka dhacday Manchester laakiin website-da oo dhan way wada galiyeen waa xafladu ku wada jirtaa ma waxaad leedahay xafladaasi been bay ahayd ama in yaro group bay ahayd oo aan kulmiye dan u ahayn oo dhawaan soo gashay oo meelaha wareegta baad leedahay miya oo website-dana been baa lagu geliyay kulliba way jiraan dadku waad ogtahay mukhtaar oo imka siyaasaddu waxa weeye waa dabayl soconaysa marka way jiraan qoliyo meelaha marba kareesto oo sheegto laama sheegtaa laakiin wax ka jira ma jiraan arrinta waad beeninaysaa beeninayaa waxaa jira niman guddida fulinta yidhi waa nahay oo xafladda joogay oo saddex nin ah guddida fulinta nin askari la yiraahdo nin kaysan la yiraahdo waxay hadda Manchester ugu yimaadeen way jireen niman kulmiye ah oo yimi laakiin waxa u yimaadeen aroos ka dhacay Manchester oo rag family-ga aroostay ay maartay caylad yihiin marka waan isku aragnay xafladda iyaguna dib bay u noqdeen laakiin niman aroos u yimi yahay laakiin niman xaflad u yimina ma ahayn niman shir u socdayna ma ahayn niman lagu casuumay bay aroos ka dhacay magaalada Manchester markaas sawirada website-da la soo galiyay waxaad leedahay waa xafladii arooska ayaad leedahay kulmiye waxay iska caado ka dhigteen inay sawirada ay marba meel iskala qaadaan si ay islaamaha reer Manchester iyo UK lacagta ugu ururiyaan miya ma nasiib darro kala jirto oo niyo imika waad aragto dadku sawiradii waa ku waasheen marka waxaan u leenahay kuwii yimi horta de karaamay naga mudayna hadii guddida fulinta ragii ka yimi si wacan magaalada waa ugu soo dhaweynay waxaanuna leenahay xafladii kamay dhicin
qolyaha hadday iskala qaadayna dee maaragtay qofku sawirka meesha ku gelayo isagaa u madax banaan oo maaragtay dalka imika laysma caburiyo laakiin way jiraan kuwa iska sheegta meelaha ka sheegta inay laayihiin qolyahan imika garabkan kale aada u bixisay anigu waxaan ugu imika wadankii waxaa kusoo batay garabka toosinta iyo maxay ahayd turxaan bixinta garabyadaasa kusoo batay wadankii markaa waxaad leedahay garabkan waa garabkii toosinta oo idinkaa garabkii saxaaya kulmiye uu dhaafay garab toosineed iyo garab kale uu dhaafay kulmiye waa kulmiye waa la kala shaandheeyey sida runtii dalkii waa lagu kala shaandheeyey muuse biixi iyo madaxweynaha kala shaandheeyey xusbi jiro weeye xusbi maaragtay dhaafay in garab toosineed la sameeyo wey markaa qurbaha laakiin dhul baa jirta weli aan la kala hufin markaa waxaan aada iyo aada ugu dhaliilayaa taa guddiga fulinta oo uu hogaanku aada iyo aada uga jecel waxaa la sheegay ama aad imika qiraysaa hadee in garab kala jiro iyo garabkiina waxaa la sheegay inay waxyaabo badan qabteen 10 sano ugu dambeeyey oo waxqabadkiina uu aada iyo aada u badan yahay oo aad rag abwaaniin oo fara badan aad magaalada kusoo dhaweyseen xasan gane baa kamid ahaa aadan tarabi baa kamid ahaa maxamed kaahin baa kamid ahaa suldaan guuleed baa kamid ahaa cabdiraxmaan talwa baa kamid ahaa wasiirkii arrimaha dibadda ayaa kamid ahaa oo siciid cali shire iyo maxaanku idhahdaye ilhaan oo wasiirkii shaqada ahayd oo lacag badan u dhiibteen waxaad bixiseen lacagtii madaarka burco waxyaabo badan baad qabateen garabkan kale xaggee intaa jire ad waxaad qabanayseen كل جاليد الرير سومالي لان waxay leedahay gudoomiyaha jaaliyada reer Soomaaliland Cabdullaahi Cismaan Jaqire karaamada wuxuu ku mudan yahay isaga dalkan magaalada Manchester dadka ku soo dhaweeyay isaga Suuriyeeye Soomaaliland isagoo wax ka qabta marka taasi waxay ahayd mid u taalay gudoomiyaha shacabka reer Soomaaliland Manchester Great Manchester wuxuu ku karaamisan sharafna waa naga mudan yahay xusbiga se waxay u baahan yahay maanta xilli kala guur lagu jiraa horena waan u sheegay in la qabto ragga wax qabanayo loo daayo laakiin aan laga daba rarin oo aynan jirin garabkan aad leedahay magaca ku sheegaysid toosinta ama xiniyo magaca kale ku sheegaysid waxa ay sheegeen inay isku soo dhaweeyeen oo xafladan ay u qabteen saddex nin oo ah gudoomiyihii xisbiga wadaniga Manchester xoogayihii xisbiga wadaniga Manchester iyo afayeenkii xisbiga wadaniga Manchester taasi ma jirtaa ma xaqiiqa kulli wadani anigu waxba ka sheegi ma waa xusbi qaranka Soomaaliland saddexda xusbi qaran kamid ah karaamina waa naga mudan yahay inaan xusbiyada wax ka sheegno maartay afka iyaga maaha laakiin kulli intaan ka war hayo 6 bilood u dambeeyay gudoomiyihii iyo xogayihii iyo dee waa niman wadani iyo waan wada joognaa laakiin dee niman beri hore ka tagay hadii aan ahayn oo way jiraan dad xusbiyada markay galaan iska sheegteen xusbi kale ka soo baxeen marka كل أنا قمت درين كوا منا مقالين كبحين واجرا حسب جي وطني وين تشوفن قدومي هذي وحنا ركاين وهرجيس تشوفه محمد شوت حقيقي واحد هرجيس وتشوفه ساش كلام كويدين واحد مركي مسبح ويميت كلمية وما حسبت كلمية أي مرور بينته وشغال رجعنا يمي كلين ونسود ولا قاركود ويك حيانا واحد لقي حفلة دي مسبح حالة تساي ما أنت الواحد اللي عندنا ويصود يقربتين وما حسبتها يمر له بين تعادل شيء بدوينه أول شيء الخضار وحده تاكا جوابه واحد من قدرتك كوسو بطي واحد شراء إمك واحد كسان أنت ضبط سديت شهر وقوود وتجي إليه مالك استخلص بما كسبه وأنا واحد لقى حشاده ضفك إنه مبدأ لهذا ومبدأ يس وما له هذا في عن مركا حمنها سرسرة عدي حسبية كسبه حنا نجوا سود ويرينا ضفك مبدأ وعليه وجوري كرا لكن ما أجي منا مقال nimanka sheegaysid wadanina waa wadani waan tartamayna tartan baa naga dhaxeeya laakiin wax kale oo maaragtay xulufad siyaasadeed baa naga dhaxaysa laakiin colaadi nagama dhaxayso marka ma maqal nimanka amina jiraan waxaan wareysada dambaanu ka qaadi doonaa gudoomiyaha xisbiga wadaniga Manchester oo su'aalaha weydiin doona insha Allah adiga intaasaan ka gudbeenaa waxaan su'aasha kale ku xigtaa waxa weeye waa maxay sababta TV-ga qaranka oo la wada leeyahay ee Soomaaliland oo dhan ay wada leedahay ay intay been cad oo intay Manchester yimaadeen ay u soo daayeen ileen dadkan baan soo dhaweynay iyo waa kan xisbigii wadani hadda leedahay garabkii waa garabkii xiniya xaasid kulli waxa jira aniga TV-ga qaranku karaami iga mudan yahay kulli inaan ka joogay gudoomiyaha ka ina la dhanbu degan yahay waa xagayga karaami ka mudan yahay laakiin waxa jira ina ma yar oo u shaqeeyay TV-gaasoo TV-ga qaranka ka dhigtay inay boorsada ku ritaan
markaa dee waana tv qaran dadkana waa u wada siman yahay xusbiyadana sida runtii wuu siman yahay markaa waxaan u malaynayaa waa qolyaha dee tviyada qolyaha shaqada marka loo diro ku adeegta markaa ma ogeyn kulle tvga qaranku aniga maaragtay wuxuu iga mudan yahay karaama waa maxay sababta ay manchester u yimaadeen tvgii qaranka mar hadduu yahay ma reer buu ku yimid ma saaxiibaa u yeedhay ma garabka toosintaa u yeedhay waa maxay sababta ay u yimaadeen waxaan u malaynayaa kaa bursida mursidaan ka sheekeynaya laakiin tvga qaranku wuxuu iga mudan yahay karaamo waxaana weeyaan qof kasta oo ku kacaya fal ka hor imanaya qarannimada somaliland annagu si cad baanu wax ugu sheegaynaa waxaanuna leenahay waa inuu tvga qaranka uu yeeshaa sumadii lagu yaqaano dadka udhexeeya laakiin yuuna noqon tv borso lagu sito miyaana ceeb weyn ku hayn tvga qaranka arrinkaasi dabeeto aad baan uga xumahay hadday jirto waa lay sheegay inay jirto laakiin ismaana arag laakiin aad baan uga xumahay waxaana leeyahay inamada tvga qaranka u shaqeeya waa inaad si asluubeysan ugu shaqaysaan qaranka aad u shaqaysaan waxaan arkay imika wariyayaal badan oo siyaasadda ku milmay marka qofku hadduu qaranka u shaqeeyo waa inuu qaranka ku ekaado waa maxay fariinta aada faraysaa wasiirka warfaafinta iyo wacyigelinta somaliland ee tvga qaranka mister cadaani iyo fariinta aada faraysaa tvga qaranka ee u k gudoomiyaha tvga qaranka ee u k aad baan u salaamayaa wasiirka iyo maaragtay gudoomiyaha tvga qarankaba laakiin waxaan leeyahay ha la waafajiyo shuruucda tvga qaranka waa in la waafajiyaa wax uu qaranku leeyahay dadkana u siman karaamana laakiin koox goosatay iyo ayna guruubeysanayna ka dhigan wax shindad lagu sito tv weli waxaan kusii wada jirnaa su-aalihii aynu weydiinaynay gudoomiye ku-xigeenka xisbiga kulmiye aynu weydiinaynu kusii wada jirnaa cabdisamed xasan saalex guri cabdisamed aad iyo aad baad u mahadsantahay booqashada aad nagu soo booqatay guule t v su-aasha kale maxaad faraysaa gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee muuse bixi oo laga yaabo inuu maanta ku dhageysto ama habeen dambe fariinta aad u diraysaa waa maxay horta aad mar labaad waa ku salaamay niyahow waxa weeye horta gudoomiyaha waxaan horta aad baan u salaamaya gudoomiyaha hore waan uga hadlay arrinta kala guurka ee xusbiga ku jiro xusbigana waa xusbi in badan soo jiray dhowr iyo 10 sano waa xusbi dhaafay halkii mucaaradnimada ee loo baahan yahay xusbi qarana xusbi muxaafada maanta ah waxaan muuse bixi horta waxaan farayaa su-aasha quri aan farayaa waxa weeye inuu ka fiirsado guddida fulinta ee UK oo noqotay guddi caadaysatay inay xusbiga burburiso waxaa jira xilligii dhaweyd oo ama xilligii wasiiradu way iscasileen somaliland siilaanyi uu kala hufay somaliland wasiirada wixii aan loo gudbinayay inay line la socdaan waa la shaandhiyey marka waxaanu leenahay kulmiye gudoomiyaha UK master xariir waa inuu ilgaara ku eega waa burburiyey magaalooyinka 12 magaalo oo UK mise 12 laamood baa jiro 12 laamood way haystaan la dhan 7 meelood bay u kala fadhidaa guddidii fulintu 5 meelood bay u kala fadhidaa marka waxaan oran lahaa waa inaad ka fiirsataa gudoomiyaha xusbiga kulmiye ee UK kuna bedeshaa nin ka soo bixi kara maaha xilli kala guuraa lagu jiraa dadku doorasho galaya lama oran karo ha loo daayo waayo Soomaalidu waxay tiraahdaa kaygeela kala qoosatay ariga u dirata maaha nin qaban kara nin cid laba wiil oo isku tagay ma kala saari kara marka waxaan ka codsanayaa waa inaad il gaar ah ku eegtaa xusbigu xilli doorasho ku jira lacag buu u baahan yahay dad buu u baahan yahay qurbaha 2000 iyo dheeraad baa ka tagay xilligiisa inay doorashada ku jiray maanta cid tagtaba lama hayo waayo nin kasta ay laba kasta way haystaan marka waxaan oran lahaa waa inaad dib ugu noqotaa adigoo sharaf mudan si aad u soo baxday karaamadaaduna ay hay u soo noqoto marka aad baan u salaamaya gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee UK Mr Xariir in badan dadku waxay ku dhaleecayaan in badan inuu xitaa reerkiisi uu keeni kari waayo kulmiye dhaqaale uu ka keenan uu reerkiisii waayey taas xaqiiqa miyay tahay nasiib darro halkaa reerka aniga aan taabanay laakiin nin laba qof aan isku keeni karin gudoomiye xusbi kama noqon karo xusbigu waa nation way waa ummad isku timi marka nin aan laba qof isku hayn karayn si gudoomiye u noqon kara xaq waxa uu leeyahay gudoomiyaha xusbiga kulmiye muuse biixi cabdi markuu hargeysa ama Somaliland jooga inuu meel kasta uu ogaado tuulo kasta danta xusbiga waxay ku jirto marka UK waa meesha lacagta ugu badan kulmiye gelisay markuu soo baxay maantana xitaa sanduuqa kulmiye ee UK 10 gini kuma jiraan lacagtana cadaan baa lagu kala qaataa marka waa nasiib darro xusbiga ku dhac gudoomiyaha xisbiga UK ee Xariir markii uu musharaxa gudoomiyaha muuse biixi uu yimid UK wuxuu in badan ka qariyay khilaafkii ka jiray UK
gaar ahaan magaalada manchester oo 2 garab ahayd, cardiff oo 2 garab ahayd, east london oo 2 garab ahaa, bristol in badan buu ka qariyey gudoomiye xariir. iminkana dhaqaalihii way diideen. xagee u kulmiye dhaqaalaha ka helaya beerto? bristol way diiday, cardiff way diiday, manchester way diiday. xagee baa dhaqaalaha laga helaya kulmiye? geedi adag baa xusbigu ku jiraa. waa su-aashaan ka hadlayo hore. geedi adag baa lagu jiraa, xilli doorashaa lagu jiraa. magaalo lacag bixinaysaa ma jirto, waayo waxaan loo bixilayn habeenkii kala joogo xariir uu la go-an yahay. mana hagi karo xusbi iska dhan oo xusbi qaran oo weliba xusbi muxaafid ah, ma hagi karo nin aan su-aashiisu soconayn. marka muhiimka ugu muhiimsan waxa weeye dhaqaaluhu waa very dadkana kasii importansan. dhaqaalaha haddaana xusbigu dad haysan ma soo baxayo, dhaqaaluna wuu ku xiga. 10 meel bay fadhiyaan reer kulmiye UK. waxa weeye UK baa ugu weyn, kulmiye America ku xigta. kulmiye maanta halkii ugu liidato maraya. horena waanu sheego xusbiga wadani wuxuu ku araartay inuu kaga xoreeyay. wayna dhici doontaa dadku inay ka hayaamaan hadduuna ka bedelin kan haya imika. oo aan ku maahmaahay Soomaalidu kay ariga kala qoos geela kala qoosatay ariga u dirata. marka ma nin qaban kara iyo nin gudoomiye noqon kara midna ma. waa saacad aad baad ugu mahadsan tahay. kaasina waxa ahaa gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee manchester iyo bolton, cabdisamed xasan saalax gurey oo aan waraysi khaasa kula yeelanay bahda guulee t v. aad iyo aad baan idinku hambalyeynayaa gudoomiye. kala soco wararka t v ga guulee t v daclada adduunka meel kastoo aad joogto. youtube-ka guulee t v, facebooka. waxaa waraysiga qaadaya anigoo mukhtaar baashi maxamuud ah oo manchester. sidaas iyo waraysiga dambe ee gudoomiyaha xisbiga wadani ee magaalada manchester ayaan wiiga dambe qaadi doonaa. sidaas iyo daawasho wanaagsan.